For many people, naming of a sultan is difficult. It entails numerous discussions, deliberations, as well as considerations of various issues. But for the Somali Mohammed Zubair community, it was easy. Sultan is an English term. It is a noble title with several historical connotations. Originally, it was an Arabic language abstract meaning strength, authority, rulership, and power. At various times in history, the leaders of Islamic states from Morocco to the western borders of China and from Nigeria to Indonesia have used this title. Today, sultans head several modern Islamic nations, including Brunei and Oman, as well as the smaller states within the Federation of Malaysia and the southern Philippines. From Arabia to Africa and even Europe, the term was used to describe someone who is greatly respected and whose ideas and sentiments were followed by all. But for the Mohammed Zubair clan of the Ogaden Somali group, the term has lost meaning at all. For 32 years, they stayed without one, a period in which many things unfolded, a time that has seen the community ripped apart by conflict, hatred, and disunity. The late Sultan Abdi Ogle was a colonial chief who in 1949 was honored by the King George VI for his service to his government. He is most remembered for establishing the Wajir Secondary School in 1950 as a primary from his hide and skin store. dhallinyaranimadii wixii Soomaalida caadiga u ahaa uu sameyn jiray disowgana uu ciyaari second world war markii fiitadii Ingiriiskii iyo ay u dhacay wuxuu ahaa military wuxuu noqday intelligence department ku shaqeeya military intelligence ku ahaa major birtadheer balkale booji markii la soo dhaafo major ka wajidega maartay geeda markaad u sii socoto barkale basweyne geeda abaq ah kambiga section kooda uu deganaan jiray ka dambe markii fitadii ay qabuto jubaan baa la qoray ka dambe qabiilkii baa ka dhigtay maxamed subayd yaa boqorka oo doortay uu shaqeyn jiray uu jeclaa public relation qabiilnimada Soomaalida uu shaqeyn jiray. Among his many children was the late Ahmed Abdi Ogle, who became the first member of parliament for G South at independence. His other son, the late Noor Abdi Ogle, also became the MP in 1988. For 32 years, the community was involved in partisan politicking and was run chaotically. Individuals clashed with no leader to look up to. Things got out of hand and unity was forgone. Destiny had its own route, whilst the clan had theirs too in their own hands. When the day finally came to choose their next sultan, they did it with passion and togetherness. The event, which was held in Habaswein, was attended by many people, even some coming from far and wide, and surprisingly, even the famous Family Guy was present. The occasion was graced by delicious mouth-watering dishes. No stone was left unturned. It demonstrated the confidence in the candidate, and the relief of finally choosing one of their own was evident. The occasion was well planned and prepared, as the air was filled with celebrations and blowing of horns, beating of drums, among others. Everything was in place, and everyone's attention was directed at the crowning of the Sultan. So when the time came to unveil the Sultan, they did it with urgency, power, passion, and enthusiasm.
men and women stood up to welcome their leader for the next 77 years. Jingles and familiar sounds erupted once the Sultan came on stage. Seated beside his brothers, he appeared a man with new plan and schemes for his community and the people of Wajir at large. Moments of congratulations and a series of handshakes followed. Smiles as well as great stanzas were displayed as they passed good wishes on their Sultan. Serenity and happiness engulfed the situation. Most speakers aired their delight. The gestures and expressions of their faces spoke volumes. Their adaged actions speak louder than words was true. Most notably, his brothers thanked the elders and voiced their appreciation to be given such a prestigious position. سلطانك أنا كوين ولكن يغير ويان وحبو مالي هبين إيه مالي مرحالة بانكاه ولا المال هدوين فرحة وحقيقة فرحة أنا انتلمامي كرين وانتابين كرين وحقيقة ولكي يدير أو صدني تدبية سنويان مالك لما يعابي وذيك به كما فرنجي قالوا يقان أو جل جيز 1947 بهي ما أنتنا 19 و 2013 وتدبية سنة انتو ملحها انتو وهلقبكها انتو موتن يهيبا تدبية سنة ويا ما أنت فرحة داني إلين أيوة إما وحاويا ودي سوما ليسين دبدال إيكنتين إيضا انتو وأبال أن ترميني ولقسنا وتاريخ هيستري ودمع سنتين هلا الله يديسي أنيقو وحانا يورتا جيمن بيس ورتا مدو وريسو والسلامة آد أنو إغنو هذا وحالي ويري نيكو سيسكو ويري أسكر ما يسكر اسكدابان سوف فعلو أنك سوامان ما أسكر بانو باني مدو أمدا أمان كورتان إغنو أماك آدم وإلالينا مدالك ما تلا وحنو مرينا ومالي آدوين وعليجي سجاع دي مداركة دي وعدي لا يوني بغر دي يعني محمد سوق دي مركا وحنو لاي ما انتوا فرحة آد وين أدنا وفرحنا واي وحيا لما قلتوا لشريت وآد ما انتوا فرعينا وليبوا سفر يدونا آد بانو سفر يدونا آد بانو سيدي يدونا مدالك عليه وحاجر محمد سويرو آد اسم قلو وعبالن بان ويدسين المعبد أوغلي مربان إني ننو كينان مربان بورتوين آبان إن آدم الحبيب سناي لكن هو إمغلي سنان ملين مركب عبالن باتكو دم أمالينا ما أنت وحنو مالينا بغر كواني دي كيني بغر كورتو إلهي إنكيس بغر نعفع الله نوغا ديو إلهي إنكيس بغر نعفع الله نوغا ديو بغر كبات بلا الله كديو بغر كباتي سكو كرسون الله كديو إلهي إنكيس بغر كبات فاتح على رعي بغر فاتح على مرورت بسم الله الرحمن الرحيم أنا هذا البدن وفهم البدن بانا واتكسيسي ما نرجع بسوي لكن وان سو قابني دتك بدن وان سو قابني ناف الدور خمه إيش كم هو هذا محل قصده سوماليا معيسنا مندب وحميوبان أي حاجة كده ماشي الشريكي هبا سويني وضعي
وحان ذي شيء قولك ما بدل معه لكن دتك هو بدلني أنا وحان ملايين وحيد عمري لما يشن دد يربع جرا نير هي ملايينها لكن وحان فديستا ويل يرا نسكدغا صلاة حفيسانكو كلي وان أنا مقول ده وح أنكله فديستان لهاي محمد بن وحان ذي شيء بدي ستة كلمة شيء بوها نقلته يعني نشدوي دلتي وايد أنتاي شدوي وودم كل يجي كجوا هذا ودنك ما يمانت لما تجي ماشي المغرب على قضيني مغرب بنوغل عيار دمبيسا برام دمبي دشوا دمبي ما تبغى حاول سما دندين وادي امزد دي ما تبغى امزد دي قاعد كانوا مسوق هذا نحن تعلمنا هنا مقابلات وحنا ذي شيء سلطان كان دردارمين ninka dhadhale annaga hataa ninka galtiga oo meelaha geela ku jiro raacay wuu og yahay kolkaan fiiriya aniga oo daadi ku xigta aan eegay boqolkii 99 calaamadiisu leeyahay maxaan idin dheh وقولك معك كمان حبض انه يبقى حسنتات ابوه وحياة رجسته ابوه ننسخب وها قبلها انا ودو في جري على مدينه وليه ابوه ninka musaafirka wuu eegi jiray aabahay ninka bugtaan wuu eegi jiray aabahay ninka dhinta wuu aasi jiray calaamadii oo dhan ku sifaysay jidkii aabaha inaad hayso maxamed zubayr waxaan u sheegi boqorkan maanta uu qabsaday boqorkan maanta uu qabsaday xafiis buu lahaan doonaa qaynuunkanaga waxaa way qoys walbana inuu dab yeesho ilaa boqor keligiisa ma shaqeeyo buugta abaanaga wuu hayaa faylalkii wuu hayaa way u yaallaan wuu garani marka waxaa la raba waxaa waayey بقرو قبل كينا دروس قبل كينا دسوكنتو كم حن إنا تصوتو سيسو كم في عنا فعلنا الله ودو محمد زوير وحنو شيدي يا رب برسنان دور كريانا وبجرين نمبا وحير هذا ما فت أما حفظين والله فتسيني وكافي waxaan waa boqor waana qaynuun idinka intaad ka soo qaadeen saragtaaley yaa meeshan keenteen awoodaada boqornimo yaynan dhumin boqorka awood bilow awoodaada boqornimo yaynan dhumin ha noqonin boqor baraka ha noqonin boqor liibiya ha noqonin calaamadeedan mali aabahaadana muusan ahayn waxaanu sheegi maxamed zubayr waxaanu sheegi dantanada waa middo misdo way dantanada kii bari jiro kii waa ma jiro kii waa soo joogo dantanada waa middo ninkii mudaayo maxamed zubayr nin u dhaamo inuu meel kale jiro been isu sheegay xubno kasta aqoon qaba aniga wax kuwa nin kale wax uu kuu geli male ama jeclaaw ama ha jeclaanin jaadkii maxamed zubayr baad raacay
جيت كوري ومكي محمد جوير قليو ويكون الله لازم راتك محمد جوير وين تصور عشاء وحنكسو قبيني هذا الكيك وحنكسو قبيني محمد جوير سيدي ولا له بهداي وشيغين wax badan buu yiri haday war maxaa idin daare maxaa kanayto maxaa kan nin haduu rag badan dhalo taladiisu way lamaanaani Soomaalida saaka maqla jirtay waqtiisa nin may lamaanaat taladiisana Soomaalida waxay jirtay boqolkiiba 100 halaad mid bal laga matago hayaabeen hadaan isku jiidno hayaabeen sida awgeed وقاس كلهم من كانوا كانوا سلطان محمد سلطان عبد الله وقاس كلهم محمد جبر بيو كانن بقر كوالدين كان كبدا كلها كنبو كله دامي الله كنبو كي ددك اسكو ولا كنبو محمد جبر كلنا امته بقر waxaad u tahay ogaadeen oo dhan baad baqor u tahay ajuuraan baad baqor u tahay dadooda baad baqor u tahay sida awgeed كلنا برشاد هذا الدمبان كهذا دونا شغل هذا الله كوف فدوديو أنا وانكو كالمينينا بقول كي جلال هكذا السلام عليكم. Majority of those who took to stage talked about the need for unity. وكورنا وجدينك محمد سويرك والسلامتي. أنت ومالي وين أروح أنا إيرك جارس بنحني تنوعي ماذي. waxaan doortii u taagnaa waxa weeye wixii ay gaaris qabaan inaan idin sheego dhamaan dadkii gaaris aad joogay maxamed suweer intii mid iyo intii imaan inay fursad u weydiinay soo kacdaba aad bay arrintan u soo dhaweynayeen wayna idin soo wada salaamay dhamaan maxamed suweerka ka yimid iyo kuwa joogay habaasooyinba ama kuwa ka yimid ama wajeer ama qaxootiyada ama degmooyinka kale ee ku dhadhow dhamaan wada idin soo salaamayeen aad baad u mahadsantihiin mahad weyn baa idin celinaynaa maanta fadhigan oo sharafta leh aad nagu cazimteen ilaahay waxaan ka baryaynaa annagoo idinku kaban inaynu noqdo midkii laga faa'iido midkii suldaankii lagu dhisa suldaan anfaca waddanka iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca alla ka dhigo mid oo taariikhdii aabihiis uu ka taga alla inuu ka dhigo mid maaragtay dadkanaytu u arkeen inay muhiim tahay inay suldaan qabsadaan dantii ay kala hayeen oo midnimo iyo hor u kac iyo walaalnimo iyo fiicni mid oo anfaca oo keena oo dadkii meesha ay doonayaan hadafkooda ku horkaca alla ka dhigo anagana waa idinku kabanna inaad dhaqantaan ood wanaagsanaataan maaragtay qoyskii hordhiga uu ahaa ogaadeen siba dadka ogaadeenka ku nool wajeer south ayaa tihiin haddii aad dhisantaan geedkan hadduu baxo oo hoos uu yeeshto waa la hergelaa marka haddii idinka aad dhaqantaan ood midowdaan aad xoog yeelataan hoos baad noo noqonaysaan maaragtay inta kale hoos aad u noqonaysaan kama xumo waana lagu faraxsan yahay maxaa yeelay haddii ciddan ay burburto oo khilaaf uu galo oo maaragtay dhib ay ku dhaco haddee intii kalena oo maaragtay fiirsanaysay iyadana dhibkii wuu saamaynaya marka insha allahu markii arrintan aad dhistaan waxaan filahaynaa tillaabada u horaysa oo suldaanka uu qaaday inuu noqdo midii reer wajeer south oo dhan la iskugu keeni lahaa oo go'aan wanaag fiican iyo madaxnimo fiican iyo midnimo fiican la isku keeni lahaa suldaanka waxaan u sheegaynaa suldaannimada waa wax oo maaragtay loo leeyahay dhaqan loo leeyahay oo Soomaalida haddaad u fiirsata dadka waddanka islaamka oo dhan meel kasta oo tagto way jiraa suldaan geeska Afrika oo dhan waa looga dhaqmaa xibin aad u muhiim ah waaye maxaa yeelay suldaanku wuxuu muhiim u yahay waxa laga yaabaa dadka siyaasiga ah inay jecleen salaadiinta la qabanay maxaa yeelay ninka suldaanka waxa laga yaabaa qoyska marka iyada ay ku aftirsanay boqolkiiba 90 ama 80 inay gacan siinayaan
ninka siyaasigeena boqolkiiba 40 inuu ka haystaa laga yaabaa marka saasay ku kala duwan yihiin waxa suldaanka uu u barakaysan yahay oo ducadiisa aqbal ay u tahay oo maaragtay loo karaamaysto waxa waaye dadweynaha yaa waxa laga heli karaa boqolkiiba 80-90 inay u yihiin maaragtay raacsan yihiin hormaqa mariya qaadeen quraankaas sigadii la arkaa waxa la aqriyo inta cadadiisa yahay aniga naftada inaan gaari sigada kale isu malayn maayo laakiin haddii ay gaarsiiyo waa joogaa ilaa ragii akhrinayay waa ila jooga oo shabaab ah oo qabiilka oo sidoo kale dhibka maxay siirayay garanayay dhib baynaya qalbigeena waa xasuuro wixii la arkaa la warsanayo baan soo gaarnay maantana waxaan ay wadogtiin yaa isu duceey iscafiya wala noqda intaana wada ku daray Sultan Mohammed Sultan Abdi Ogle spoke amid raptures from the crowd who hugely adored him. Every word he uttered was followed by applause and cheers. He did not disappoint, neither did the crowd. Bismillahirrahmanirrahim. Omayasha sharaftale. Ulamaudinka, mamoyinka, dhallinyarada, caruurta iyo gabdhaha kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga aad baan maanta farxad weyn aan u qabaa waa markay aan dhashaan dhihi karaa taasoo sabab u tahay maba aanan midaynin intan oo tolkayga inay meel intay isugu imaato sabab aniga aan leeyahay laakiin maanta yani maaragtay wax kalaan arkaya maxaan mahad weyn u celinayaa rabbigiina untay oo na soo gaarsiiye ama qadiray wakhtigan maanta aan joogno iyo intaan isugu imaano meel kasta ka imaadeen rabbigii awooddaas na siiyey baa mahad leh waxaan mahad u celinayaa walaaladay oo wax iga weyn iyo wax ila eg iyo wax iga yarba kursigii aabbahanaga ii gartay oo yireen adiga umbaa qaade inagu ciyaaro ma aan jeclay meel kasta oo joogaana garis baan badi ku noolaan jiray ilamaa wajeer markaan u guuro aan hadda yani wajeer iyo garisa iyo nairobi saddexda meel buu aan deganahay mar kastaana wixii tolka dhibkiisa xil gooni ee kanayta aad i saarteen aanan ahayn yaan iska saari jiray waxaa ka mida goobta meeshan waxaa fadhiya rag maadha hog gacantii intaan geliya aan ka soo bixiyo maxamed subeele shirka way joogaan ama way wada ogyihiin oo maadha loo haastay oo weliba aan dhihi karo ogaadeen way waxaa yeelay labana maxamed subeer bay ahaayeen midna baagari buu ahaa oo walaalkanaga oo muqaahalaada inuu ahaa waxaa dhacday shaqaalaha dowladda markii la shaqaynayo shaqaalaha cidda oo maxamed subeere oo shaqadii laga fiijiyey oo midna 8 sano ka maqan yahay midna 7 sano ka maqan yahay labadiiba shaqadii intaan ku soo celiyay midkii 8 sano musharkii wajaru ka shaqaynay inta way wada og waxna ay saarnaa ma jirin aniga MBna maanan county council maanan ana xilka isaarnaa oo dhalashada qabiilnimada oo magaca oo bana inta uu yeeray idin xaqiijinayaa kaliya waxaa weeyaan maanta haddii tii aniga baan isa saari jiray aad xil kale igu darteen ood oday iga dhigateen inaan sarwaalka kor u jiidanayo oo waxaa jirta wajeer wixii nairobi laga dooni jiray
inayan jirin wajeer hadda Nairobi wax laga doonayo oo dowladda county government-ka ay ka dhisan tahay wajeer marka aan ka tahay waxaan u malaynayaa inaan qayb dheer wajeer county inaanan ka qabin dadka nala degan inaan weji iyo sharaf aan ku lahaa odayaashii dagoodii collusionka la galeen sifo ay wiil maxamed subeere ay noogu qaadaan oo sanatay inaan ka mid ahay number 1 aan ahaa marka iyadana waxaa lagu tartamaya ninkii dagoodiga una ay support ka siiyaan ninka asaga inuu sanata helayo laakiin sharaftii iyo wejigii iyo qabiilkii uu lahaa inay ay cidiyadeeda ay lagu raacdo ninka sanataha wajeer county ka ee nin maxamed subeere uu yahay maanta marka aan ka tahay countiga qayb baan ka gari karnaa aniga waa uni arkaysan inuu loo la jiro ama gaari la jiro madaxweynaha waddanka shaahid bay ka yihiin odayaasha haddaan arko MB uma maray dadmarkana uma maray laakiin waxaan jeclahay waxa tala la yidhaahdo tala iyo wuxuu dad isku ogyahay MBs baan qabnaa ninka sanataa waa nin maxamed subeere ninka baalkalena baarlamaanka ku jirana waa nin ogaadeene de maalina abaaba la yidhaa habeen maalina abaaba habeen hooya maalinkii annagoo jointeebaan ina sheekh maxamed diiriya colowiye ama dhashiri karnaa waxaasay taanduulka laakiin habeenkii aniga colow hoose intaan iska qajaro waxaa weeyaan countiga xaqi aan ku lahayn waa laazim annagoonan ninna warsanaynin inaan ka qaadanno ama development ha noqoto ama shaqogelin ha noqoto waa la isku daya nala qadiyo dadaal dhawe nin certificate haysto oo maxamed subeere ina bulle cumar madowbe yaa loo diiday inuu galo interviewga wixii aan ka samaynay saweenna waa nalagu xiray tu kalena waa la geeyo tii lamidi marka aan ka tahay waxaa weeye haddii aniga aad oday iga dhigateen ood oday iga dhigateen waan idinka gadoomiye waan idinka qaaday odaynimada codsigayga keliya waxaa weeyaan oon maanta maxamed subeere weydiin doono aan weydiisanayo waxaa weeye qabiilkii waxaa weeyaan dad yar yaa waxba igama gelin aniga waxba igama gelin wiilal yaroo dhalinyaro miin qabiilkii dhulka wajeer south la dhihi jiro qabiilka aad buu ugu yaryahay wajeer south qabiilaha kale way degan yihiin hadda habad adayba in yani maaragtay uu ka noqday yani maaragtay waxaban jirinba waan ogsannahay inuu qabiilka waddanka uu degan yahay qaxootiga waxaa ugu badan cowlyahan nabatu waa maxamed subeere baan ognahay arrintaa ayadana waan ku tala jirnaa waxaan qiyaasayaa odayaal aan la soo hadalna muslimka ilaahayba geel iyo xeen iyo wax walba waa la dhaqanayaa karaamyadana waa la doontaa ilama mandera ilama mooyaala laga qulqulahayaa laakiin maxamed subeerka waxay un jecel yihiin inay jara ciyaaraan waa yaabanahay maxaa yeelay weli maxamed subeer ragga xoolaha dhaqdo waxay ahaan jireen qoyska reer gurad khalaf iyo reer weslo wasguladka sababaa yar bay meelaanayda la warwari laakiin anaa hadda yani maaragtay maba jira maba arkaysa loo gurad khalaf oo guurayso ilaa maad aragto ilaa maad gaarto diib ama xaggaaba aad u dhaafto ma garanaysa laakiin dadkii aaway
واكي قحوتي قال لتوري كوفيدي معوان هي أول أنت لقاتي يا أنا بمكان مثلا أنا كان هدو مقيا وقرامية وصودرة دولار ريال وفايدة كرامك وفايدة لكن دوكي هل تقول دوكي ولا لا انت يا رسمك قاعدة ربطين محمد سبير سير مالي وحنا ناوس كريم ما انت مالي الدولة كي انا ولو شيري وقال محمد سبير سير مالي توبيا سوماليا نلو حدود الله الملا هاي ما صارت وان حسوستا محمد سبير كمركي ان من مطعم كوض عانا بكون نظام يلوضا دربا وحالي رادان مغلق انت بارها انتو بتاي باسمي لهيه انا يبيرين بحرا يا سو حسوستا معايا لبرتنميها بحاول كرسيغا بالكلا اسلي من محمد سوير باكو جرا صح قرأت معه وحبك ما قلنا وفايدة وين يا الشرف بقبيلك هيوتا لكن كان قارس بيجس فوت قرين هيو يوفوت قرين هيو يسواش كان لك دير او فوت قرين هيو يوغوا لك رئيسي هيو يوفوت قريني انت ما ريال عنك اليك ويان دردارك هيو نظام يلا واحد سمين هيو صح قرأت معه رقل نظام هذا مشتري وما القبيلية يا جيرا ما عرفنا وقتك كله لكن ملك كله وسياستي وحاي سوى ماتو وين بدراني تدير باباقي انت قتم باسرعان ونيروبي وتقانا شوي وح دحمرا لكن هدي انا بقري قدرتي وين امان هاكونا محمد سبير نيروبي قريان كلها أنا كان كلها هذا هاي جارسنا قرية بدن بان كلها جد هستيسا وجرب قريان كلها جد هستيسا كلها نبى سريري الله وانسحته شريتان كانت الله بان ورابيناي محايا لما هوران وأستيرا قرية كلها سنة محمد سوير كان نيروبي سكون محلنا يا أما جارسنا سكون محلنا راكي قرية بدني فأنا كقرية في عام سو هذا ردما وحن كنت دالينا إنه كسر نقدم ودنك ويدقن معايا لك كتوك هابا إلا ما كلالود يا لبح كلالود يا لبح هبا سوينا يا لبح هبا سوينا معايا نوجونا معايا بالك لا ولا أنا حوالي بالك والديك يا لبح سو هذا ردما هذا ودنك إن لدقن وانا بنا حسا نبى هدايا هلا أو جدك كمدها جدي حقرنا سو حقرت ما وحنو مالين فريدنا داني وسنتها وجدي سو قرتي يا ريال وحق الديغان ككسرت هذا كبانا واحد واحد ده ما جري محمد سويرك وحاولها وحب عشرة كواسنا بعشرة روضة هذا وحي كلو سوقنا إيرين يلا نقطة سومالي ده أول هربا قال يلا ياري بعدكن وهنجري موجي أنجرا دكن وما هنجرينه وهم ويسكت ما ليسكت وانا جراني في سوماليا ما كان سوق حدا رجي قريها ده كلها وحي أيها نكي وحوالي وسعي لها كيبا يعني مرتا أنا يتكسرها أنت بوحة كسيدين ودنك وجال لديه جري دلان إذنك هنا والسبع محمد سبع السبع هذيك لو إهن لا جيل بتكون قريسي وان كنت دالي السيني ودك لو دقلها وديغان لو هلها وبيا لو هلها هذا سيدي في ام بي بالها يعني ما غني لا يعني قصر يعني ام بي ما قصر haddaan gartana waxaan ku garanayaa waxaa way makaan heshiisna soo hadalta ma makaan heshiisna oo hool aan wada laakiin kaala xafiis igee ma dhahay xafiis ayaan geli karin baan gara بنوتاس انتنا إلهي بايسي أبينا وانكرنا أبينا ويبدعي أدوننا سيدا أودي
وان كل مدونا هدولا يراهو وان تشان دونا سومالي waxay tiraahdaa farto kale fool ma meelto odayaal taaf baa la qaban doonaa oo location aan u qaban doonaa minna diyaar u manihin nin kasta oo maanta geedkan aanan jooginna salaam baan u farayaa kii chuki iyo xumaan ku maqana odayaal baan u diraynaa oo waan doonaynaa kii la kari waayana maxamed suweer baa geedka maxamed suweer iyo tala maxamed suweer ka mamnuucaya la iskuma dhex qasnaanay maxamed suweer kiisii hore iyo kasii fiican buu noqon Since the era of the late Sultan Abdi Ogle, the clan has been involved in chief politics. Disagreements and fights have characterized daily activities. But with Sultan Muhammad Sultan Abdi Ogle at their ranks, they know they have got someone who will bring them together and lead them to glory. Sultan Muhammad Sultan Abdi Ogle, widely known as Muhammad Yari, promised to work with everybody to yield unity and bring harmony between the community as well as foster relationships with other brothers in the county. Kika waxay ka sugi karaan waxa weeyaan talab badan oo awal hore xil aanan iska saari jirin ama talab badan oo xil iska saari jirin inaan hadda xil iska saarayo taas oo sabab u tahay miyiga iyo magaalada labadaba waan deganahay miyiga dhibka lagu qabana waan ogahay marka sida hadda dawlad aan u helnay oo dawlad county government aan u leenahay nafaas bana ama madaxda laga soo doortay gobolka ama areaba mali dhibka ka jiro dhibkaas wajiguu leeyahay waxay u baahan yihiin inaan la socodsiiyo ragga madaxda counter reps to governor, from governor to counter rep inaan la socodsiiyo hadda saytu waxaan ogahay meel aad loogu rafaadsan yahay biyaraan waxaan ogsanahay meelaha hal mashiin ay qabtay oo halka mashiinka ka halaabay oo lacag ay ku iibsadaanna bamkii asaga ahaa aanan kika saaka markaan soo socday programkayga wuxuu ahaa hadduu gafnarka uu joogo maanta inaan appointment ka samaysto kastoo Christmas iyo waxyaala caynka ay jiraan oona arrintaa iyada urgently aan kala xajoodo aan report u siiyo aan doonayo marka wareyna fursad maanan u helin oo gafnarka uu meel kale ku maqan yahay weli waxaan bariistamay. The Sultan also urged the public to take their children to school and allow them to proceed to universities and colleges to pursue their diverse dreams, something if done, he says will help eradicate poverty and aid in improving living standards. Xagga waxbarashada waxaan leeyahay waqtigii standard 7 cilmi weeyaan la dhihi jiray waa laga tagay cilmigii kor buu kacay dadkina wuu batay dadkanaga waxaan dhihi lahaa oo keliya waxaa weeyaan cilmigiina primary iyo secondary school ayaan u qaadanin inayaan u qaadanin inay cilmi leeyihiin PhD keli inay leeyihiin oo ay la sinaadaan Kenyada kale anigan hadda kula hadlayo carruurtayda waxay graduate ragga waa laba rag oo masters haysta nin waa ninka guriga leh Jonathan Patel ninka businesskayga hayo mulac oo masters
وهستا أفر قبلوت سدع وعي كجران هذا وعي سمينها يا الماسترز نيروبي يونيفرسيتي لو هالكلام يجوان هذا وانا رجوان كون برنامج فديان ويان لبا ديكري بهستان لكن هدو على يراهو عن كودا كون كذا سمينها يا ماسترز كا هدو إلهي يراهو inay hor cilmigooda u sii wataan marka dadka waxaan dhihi lahaa oo kaliya waxa weeyaan secondary baan galay dhiibalaasaan haysta cilmi ma aho waa laga tagay waqtigeed in akhriskii la sii kordhiyo oo wax manafaa leh oo ay ka mid tahay dhakhtarnimada surgeons engineerings sharciga lawyerska electricityga mana aha markaad cilmi baranayso inaad mishaar aad qadanayso keli ood mishaar kii waxaad ku qaadan lahayd maxaa yeelay markii aad samayso engineering waxaad furani kartaa kamnigaada oo engineering consultant aad noqon kartaa dhakhtar markaad noqoto private بعد فرني كرتها pharmacist كتير دكتور لماذا نحتاج مكان براتو واحد فرن كرتها تكام كذا هو pharmacist مركزت كينا يسدا وفهمان وما ركتها علم اللي يعيشه شفاء نروش هذا نروش وارد كودي وحصو بري. The Sultan, who succeeded his father after so many years, said he will liaise with the county government to fight the perennial bad handling of the female gender, especially evil practices such as rape that has lately been rampant in Wajir County. He added that the county government should come up with new laws in conjunction with elders to arrest the situation. سمينا يعني أجعلاني لهن أرنتا ريبسكا وأرن فولهم وأنا كبدان تاي كاونتي كنا جنيت وجر سبب ترى وحويا بوليس كبالا كنا نك مهني فوق سمية مكي وروين بي وجود بيان محكمة بومبالاسيا odayaalba xagga ka wareega xaggaa wax lagu bixin xaggaa wax lagu bixinaya oday iska sakaraad oo tabcaan ah oonan intaasoo jeer maxkamadii aanan ku soo noqon karin yaa wax la siinaya bedelkan maxkamadda ku soo noqon lahaa aan xogaagan sabaan xirka aan iska qaato buu dhahayaa gabadhi dhiigeedii halkaas uu ku dhumaya marka sharciga aan samayn rabnaa wuxuu yahay ninkii gabar faraxu mayo inuu intaasayto meher uu bixiyo intaasoo dhiye uu bixiyo asaga iyo qoyskii uu ka dhashay haddii sharci aankaasayto kale ama odayaasha aanu ku tashano oon samaysano annaga oo kinyeji waxaan u malaynayaa maxkamadiina waa laga raysan jeelka la isgeliyana waa laga raysan for example judiciaryga Uganda oo kale arrimooyin fara badan oo aanka sida odayaal ay u leeyihiin iyo boqortooya arrimo badan waxaa dhameeyaan odayaasha iyo suldaamiinta ayaa dhameeyaan wax looga baahan yahayba maxkamad iyo booliis iyo wax aankaas oo kale ma jirto odayaalba marka waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan arrintan oo ku daran oo aad u weyn waa gabdhaha la faraxumeeyo arrinta iyada qalay odayaal badan oo Israa'iil way joogaan qoys walba arrimaha agendarka igu jiro inaan kala showro odayaasha iyo madaxda wadankana kamid bay tahay sidii sharci aan isku maamulno Wajir County haddaan nahay inaan sameeyno
The wealthy businessman also urged the youth to take advantage of the vast opportunities that come with the county government. shaqo way jiri doontaa baan maqalnay siduu noo sheegay gafnarka waqtiga uu hadda xafiiska gafnarka furan yahana waa muddo yar dhib fara badan oo qabiile iyo qoysyo ka hadlaana way jiraan oo qabiil hebel baa la qoray qabiil hebel baa la qoray hasa wajeer saawta ogaadeenka way calaacalaan waxay yidhaahdaan dawadi kari baa la qoray ninka shaqada qorayo waa nin ogaadeeme oo chairmanka we county service commissionka qudhaydanayd aniga waan u tagay waan la hadlay waan wareystay wuxuu intusay intaasoo advertisement oo lasoo sameeyey wax wajeer south ka imaaday 2-3 ay ahaayeen wixii soo qortayba uu soo buursaday laakiin haddii advertisementkii aanad akrinin oo applicationkii aanad buursanin oo boardkii county service commissionkii oo applicationkaadii uusan la aalin ninna dibadda kaagama yeerayo kuma dhahayo kaale shaqada raytaa lagu hayaa taa ma jirto waa mid haddii aanad cilmigeeda aanad lahayn xafiiska gafnarka shaqada uu rabo haddii laga rabo ninka asaga inuu dhakhtar qualified doctor uu yahay hadduu engineer uu yahay haddaabad intiiba aanad lahayn lagaa rabay haddii asaga xafiiska gafnarka kuma soo baray haddii adiga inaa laga rabaa dhalinyaraha nin dhalinyaro haddaa tahay inaad ku noqoto school oo soo akhrisato. To commemorate the special occasion, the residents staged a famous Somali play known as Diso. Throughout the day, the celebrations were non-stop, and this was surely one of the best moments for the Sultanate. Although the community has heavily been involved in a heated socio-political practices and tainted relations for a long period of time, this brings in a twist of tale, and with Sultan Muhammad Sultan Abdi Ogle, they have someone who will lead them to glory and revive the forlorn hopes that has long been amiss. مسلمكي كوا جعلا
نبي محمد محمد مجيء جريوم تكوري سبركات شجبان كمانين هيا بما يسوانتا بوتو كلابها بابا صادعنا بيتكو دغان هيا دي ماشين سي عجين تايوان مريا هذا الله وحلو دارتواي سلطان عبد لو قالوا دغنا كيلا تاغو دفرك ويلكيز بالله